wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo weheliyo wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Cabdi Boos ayaa gaaray degmada Xudun ee gobolka Sool. Ujeedka safarka mas'uuliyiinta ayaa ahaa xalinta khilaafyo ka dhex taagnaa maamulka waxbarashada ee degmada Xudun oo ku soo dhamaaday safgarad. Intaasi kadib wafdiga wasiirka waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay xafiiska xisbiga kulmiye degmada Xudun, waxaana ka soo qayb galay dhammaan garabada xisbiga kulmiye degmada Xudun. Ugu horeynba waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee degmadaasi Xudun, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wasiirada Xudun maanta shaqada soo gaadhay saakana aynoo sura gashay inay xafiiskeena ay ugu yimaadaan wasiirka biyaha Jilaal Xuseen Boos iyo wasiirka waxbarashada wasiirka dowladda waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaaladiini degmadiini waxa weeye ku soo dhawaada sharaf leh waa lima sharaf mudan sheegay horta iyaga wasiirada waa salaamaya marka ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, waxayna uga mahadnaqeen soo dhaweynta ay ku maamuseen, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xukuumaddu runtii waxay sitay laascaanood oo kala hadda soo maray laascaanood waa tagtay marumaynaya waxa weeyaan brilliant laamiyada iyo dhismayaasha ka muuqda iyo quruxda magaaladaas kulmiye uu ka muujiyay waan rabnaa oo aan hadda aan hadalka rabaa inaan ku daro waxa weeye waxa jira wax la yiraahdo JBLG waxa weeyaan waa program joint project local government waxa weeyaan European-ka ayaa fangareeyay waxa berigii hore dalkan doorashooyinka ma dhici jirin. hadda hadaynu doorashooyinkii aynu qaadanay oo aynu isdiiwaan gelinay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo gudoomiyaha kulmiye musharaxa madaxweynaha waxa ay isla qaateen in gobolada ama degmooyinka la gaarsiiyo sida laascaanood loo qurxinaysiiyo xukuumadda iyo xisbiga talada haya ee kulmiye maxaynu ku caashaqnay maxaynu kaga dooranay xisbiyada kale runtii waxaan oran karaa iska meenan caashaqin xukuumaddan iyo xisbigana iminka waa toddoba jir weyn wixii ay soo qabteen iyo waxa ay ummadda maxaan dhahay ay ugu tala galeen iyo waxay ku tala galsan yihiin waa u durusi karaa wixii ay soo qabteen waa uga marxaati kici karaa waxaan oran karaa wax badan bay soo qabteen waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa garabka haweenka iyo gabadhii hadashay oo runtii aad iyo aad si qurux badan dhammaantood bay u hadleen aad iyo aad bay u mahadsantihiin. waa Cabdiraxmaan Faysal Family Television-ka caalamiga Ariel TV degmada Xudun ee gobolka Sool.